taaganahay oo aragtaan waa marsadii gacan daartii Faatix Cabdi weeye qodayna dheeraad meesha taagan ninkan waa Maxamed Cali Foos Maxamed Cali Xasan anigu Cali Axmed Sanyara ah Cabdi Fataax Maxamed Maxamed Cismaan Limaan Cali Foos Cumar Saadaad inteeda wana garanaysaa baan u maleynayaa meesha aanu joogno waa gacan marsadii gacan weeye daartii Faatix Cabdi oo duntay oo aragtaan inay u jeedaan baan dul taaganahay iyadana hadda warbixinteedii iyo ka warrameynaa meeshaan joogna waa gacan marsadii ahayd magaalada ahaan jirtay oo gacan magaalada loo yaqaanay bay ahayd haddana aragtaan xaaladeedu sidee ku sugan tahay sidee tahay waa aragtaan waa bacaad cidla ah oo aragtaan oo dhirtaas ku taal kaliya iyo marsadii oo badda ah oo u jeedaanin meeshan waa meel aad qadiimi ah oo gacan baa la yiraahdaa waa daaqsimeedkii xoolaha waa badii iyo marsadii kalluumaysigii iyo magaalada meesha oo ahaan jirtay beledka oo ahayd magaalada waa aragtay oo ka baxday meesha laakiin badii iyo daaqsintii deegaanka dhulkiisa waa caadigiisii waa aragtaan waa dhul khayraad badan xijiyada iyo buuri baa ku xeeran dad baa deegaan oo deegaanka ku nool baan dadka ku nool baan nahay anagu oo ilaahay ku nooleeyay oo joogaan nahay waxaan maleynayaa dadkii ehelka waa ka tageen oo dhulka wax u qaban lahaa oo dadka horumarkeeda iyo wax ka qabadkeeda iyo wax ka qaban kari lahaa waxaanu markay soo jeedinaynaa dadka codsiga aan u gudbinaynaa wuxuu yahay inay dalkoodii dib ugu soo noqdaan oo si wax ugu qaban lahaayeen oo dalkooda Ilaahay tuso oo wax ka faa'iideeyaan iyagoo ka faa'iideystaan inaha aan u soo jeedinaynaa waa in la isku leeyahay oo dadka dhulka uu leeyahay meesha gurigiisa ahayd oo leeyahay qof oo aanu hurayn waa gurigiisii dhulka la aaday oo dhul shisheeye oo dad kale leeyihiin meesha ay u jeedaan aragtaanin oo u baahan wax yar oo tacab u baahan loo qabto kaliya waa dhulkayga aad lahaydeen gurihiina waa aragtaan iyo deegaankiina aad lahaydeen hantida oo lahaydeen waa ka insha Allah waxaanu idin rajaynaynaa idinkuna inaad wax la timaadaan qabad fiican ka muujisaan in dhulkana hay'ad tuso anagu waa joognaa oo waxba uma awoodno laakiin ilaalinteeda iyo joogisteeda ka warankeeda baan leenahay intaas aan ku qaban karaa waxaan ka hadlayaa walaalkeen Cabdi Maxamed Maxamed Cismaan Kuure halkan waa adeer Cali Maxamuud Umar Saadaad Liibaan halkan waxaan u nimay inaanu bal taariikhdii dib u eegno oo aanu sawirno oo aan video ka dubno kilib yar waxa kale muhiim ah in bal raadkii dib inta loo raaco wax la dhiso waxaan mar labaad aan idin sheegayaa in aad bal raadkii dib u noqo dib aad macnaha aad u eegtaan oo aad laba dabaq ama saddex dabaq wixii aad awoodi kartaan aad ka dhistaan oo taariikhdii awooyaashiin aad soo nooleysaan taasa annaga wax noo tahay wax muhiim ah oo priority ah haddii aad ku dari kartaan masjidna aad ku dartaan wax walbana taariikhda ka weyn hadda waxa lagu yiri 180 sanadood bay meeshan jirtay hadda raadkii qura ka muuqda marka inahaasan jeclahay inaan la wadaago بسم الله الرحمن الرحيم ولي وانا رأيتان وحنا جوجنا ولي ومرسدي قعان بان وربحين تدي كودنا هلكا وارتان سحمد على كفر إنه حيبتها سيت الله وكل حاجة ستي ولا جت جاوا مل أمانة أو معناها ضد كاس دي معناها حلي قلنا دون وحلاقة قاط وحلا دكتو ألعاب كلا تعال ألعاب كلا سيدا مهردا كوريا كم مكتوك ألعاب تعال عندنا مورديشو وقالوا كانوا بتقولي ده رأيتانين أنا قلنا ده سياسة أنا كل شيء إنه يوم مرتين وربحين تدي كوسو قدبينا خير الله سيو نقول عبد الفتاح محمد محمد عثمان وبرنامج كان يكذب كان يهوش المسؤول شاكا هوش كان ودي أنا قلنا وحنا وداش دي كان لوجو يمكور بحين هاي وكور السنة هاي وحيد أخبار وعنو سلا ونودي وحنا نقول يمي أنت أنا كحين ندوا سوق قدبينا وقدبينا وحنا الله هذا أنا ودتك كم قدرك أو ولا شيء أو درك لها dhammaantii waxaan la hadlaynaa waa iyaga waxay ugu aragtay cidna waa maqna dawladda waa dalkaagii hadee idinka u baalay kaga sugayaa inaad wax qabadkiisii iyo dalka horumarkiisii iyo nidaamkiisii wax u soo kordhisaaneen insha Allah waa rajaynaynaa ninkan isaga odayga ah isna waa askarta ciidanka meesha deegaanka oo mujaahidiinta ah oo deegaanka xaalufinta dhuxusha iyo xaabada iyo waxyaalahaas aan ugu kala dagaalanaa oo qayb ka yahay مدنا وانا شغالين وانا ودا جوجنا haddana shaqada waa sii wadnaa controlka haddana hawsheedii barnaamijka inaan soo gudbin doonaa hadii aan tageenaa
inahaas aan idigu soo koobaynaa waa idin soo gaagaabanayna wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa Cabsax Guure weeye oo ku soo noqday mar labaad waxa weeye halkan waxa weeye waxay ahaan jirtay marsadii gacan waxay u baahan tahay in la hagaajiyo oo marso yar fiican laga dhigo insha Allah dadka dibadda jirana waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala inay arintaas ay xoog iska saaraan halkaasna waxay ahaan jirtay waxa dhisay Cabdulla Maxamed Cabdi marka nin walba wuxuu meesha ka sameeyo ayuu yeelanaya oraada marka raadkuna wanaagsan yahay marka waxaan ka codsanayaa qurba joogta inay arintaas ay xoog saaraan insha Allah annaguna intii tabartayada ah waanu sameynay oo ahayd in bal laga soo duubo fiidiyoyo iyo sawiro intaba waa intii annaga tabartayada weeye insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa inaad hadalkayga uu idin galo aad fahantaan insha Allah iyo muhiimadda aan ka leenahay waxa weeye in deegaankii bal leelaaway hadda waxa lagu lahaa 180 sanadood buu jira ma filayaa iyo ka badan ilaa 200 oo sanadood adigu waa laba qarni weeye marka waxa muhiim ah in deegaanka barwaaqada ah badda saas iyo khayrka iyo waxa ka muuqdo ay u jeedaan inaynu xoog isa saarno adduunka lama helo meelahan oo kale waa qaali weeye marka insha Allah tacaala in xoog saarno aynu ku dadaalno إلهي سبحانه وتعالى وحكى رجينا أمين هايا إنه إلهي سبحانه وتعالى قلوبتنا نسكت ديو ذلك إن صوت على سيو ذلك هو مهم إن تشعل هذوي because هدي عن ذلك الشعلان وحوي يقفوا وحوي وبابايا هاد كيسون بابايا ماشي لو حب أنت دلفت إلى إلاليو لكن مركا نكر حكم يدك إلالية يعلي بقى إلى خلاصية iyagu kama baxaanba annaga meelaha kale aadna magaalooyinka kale laakiin iyagu meeshay u dhabar adeegeen iyagana bal in si gooni ah loo hadhow maaragtay si gooni ah loo eega ayaa qurux badan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay halkaas waa buurta gacan halkan waa badii halkaas waa guriga Faatax Cabdi uu dhisay magaaladii ah laakiin hadda waxa ka muuqda burbur weyn because 100 iyo 200 oo qarni bay jirtaa laba qarni bay jirtaa aan ka wadaa 180 sano sabax 200 ka soo qaadba marka waxa muhiim ah in dayactir laga sameeyo oo wax laga sameeyo wuxuu raada wabillahi tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wada aragtaan odayaashii hore ayaa hadalkii dhameeyay muhiimadu waxa weeye dalkii loo soo jeesto haddaad si qurba joogta si muhiimana u timaadaan wada hagar la'aana dalkii waa diihiye wuxuu u baahan yahay qabadkiisii anagu waxaanu nahay badana dadka deegaanka ilaaliya buxusha iyo wixii balaaya oo dadka xulxumo wadaan ka hortaga waxaan u baahanahay waxba uma baahnin adigu kulaale anagu waa isku filanay laakiin idinka ku dhiinu dalkiina way inuu soo jeesata baa muhiim oo tala dunta dalku yaa la nici muhiim weeye taa u baahan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh beertii ama gacan baa la oran jiray oo asaaskeedu waxaa gacan koob ka ahayd Faatax oo halka ku beeray ama ku dhamaateen baa waa la dhibaatay waqtaan waa la gubay dhulkii oo dab maray
daryeel la'aan weeye xanaan la'aan iyo warhayn la'aan badan baa ku dhacday dad wax magarata baa yimi waa gubeen wax hadda uu sabab uga dhigana ma ogina laakiin waa guban tahay beerta waanu aragnaa ilaa iyo haddana kuley waa doondoonayna ciidii la raadinayo ma aanu hayno xoogaa halkaa dee wax ka keentay cidlada iyabaa keentay iyo dhibaatada u keentay intaasaa gaarsiisay wixii ka sii haray geedkii ka sii haray waa aragtaan anigu hoos taaganahay waxaa timir hoos taal iyo nimco hoos taalna waa aragtaan allah u naxariisto khayrna allaha siiyo dadkii dee asaasay faatax cabdi ugu horreeyey ugu weynaa oo deegaanka gacan asaaskeeda ka ahaa waraadkii uu kaga tegey weeye dhulkii beeri waa ku yaalleen timirtii waa ku taallaa halkoo keliya maaha dal la helay baa jira afweynaa jira xorxamur baa jirta cununka gacanoo sii weyn baa jira may waa badan tahay timirtu fara badan tahay laakiin hadda halka taaganahay waa marsadii gacan cununkii gacan weeye halkii asaaska kowga laga bilaabay nimcadeeda waa aragtaanin waxaan leenahay kuwa cidlada farfadhiya oo aan waxba haysan oo cidlada fadhiya waa dee waa arkaa dalkiina waa aragtaan xeebihiina waa aragtaan gurguryihiina waa aragtaan ka faa'iidaysta oo kaalaya ka tabcada ka shaqaysta horumar baa kuwii hore si gaaran baa ugu gaaraysaanin allah idin tuso anagu waa joognaa oo aragnaa intaan ka qaban karro waa qabanaa laakiin wax weyn anagu awood badan ma gaari karro oo ma qaban karro dad iska deegaanka xoolo dhaqataa baan iska nahay haddii ilaahay anigu anfacono intaasi markii naga siiyo waa anfacsanaa nimcadaasaa taala waa aragtaan dhulkeenii ninkii ka faa'iidaysanaya khayraadka oo ganacsiga iyo horumarka dex ka faasanaya oo dhaqaale u haysta waa nimcada waas aragtaan beerihii iyo timirtii iyo kalluunkii iyo xijigii iyo xoolihii intaba waa joogaan maanta alxamdulillahi rabbil caalamiin